إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد ولا ليال وحين كسو جرني إن شاء الله تعالى 10 كيني صبرك قيبتي لباد قيبتي هوري ويتكتي قيبتي لباد إن شاء الله تعالى أيين هدر استحسسين سمر كاين وحسكدهنا لو كان الصبر من الرجال لكان كميرا لكان كريما كما قيل. وحال يري سمركو هادو كم نقول لها لمنك أما دتك بلا آذنك أو كم نقول لها وحول نقول لها من لكراميو أو لحسو أو لشرفه أو معناها إساق آدي لو كراميو أيو كم نقول لها أصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكلي. وحال يري قفك حاسد كبال يري أصمر كيد كيسا يردكرتيسا أصمر أيال يري نكي شاعرك حكمة بدنا أيا وحجرين قفك حاسدك أما قفك أدي كحاسدية أما قفك كلا حاسدية أما قفك كحاسدية أصمر محايا لي فإن صبرك قاتله صمرك يا أيا دليا والنار تأكل بعضها نارتو ويسعنتا بركة كلا ويعنتا هدي ويدو وحي عنتو معناها تصالحان qofka xayska marka laga sheekeynayo waxa la dhahaa waxa weeye waxa ku dhagan waxa laga arkaa ama qofka xayska waxa lagu arkaa macnaha wax gubaya dadka gubaya ama dambiil ayaa kaga shidan xaqiiso hoose inta marka aragtid saas uu ordayayo xaasnimo ka shaqeynayo balaayo ka shaqeynayo markaana qofka xayska waxa la yiri dambiil baa ku shidan marka qofkii arka وحموديا دنبيشاس inuu qof ku gubayo ama cid inuu ku gubayo maxaa yeelay waa dambiil cid lagu gubo laakiin isaga isku gubaya way jirtaa qof xaasid ah oo qofkii kale guba oo dhibaato aad u badan u geysta ama dhaawacyo fara badan ama waxyaalo xun aad u guuleysta ama u geysta ama qofkaas noloshiisa ka nusqaamiya qofkii xaasidiyay ayaa wuxuu ku xaasidiyay buu ka nusqaaminaya nicmadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu doonaya inuu kala xiyo markaana insha Allah ta'ala casharadena inoo soo socda ayay noqon doonaa xaasidnimada iyo sida loola qaabilo qofka xaasidka ah soo loola dhaqmo iyo qofku inuu iska ilaaliyo maxaa yeelay iimaanka iyo xaasidnimadu tii qalbi kaliya kuma kulmaan markaana wuxuu yiri ninka shaacirkaas u samir maxaa yeelay qofkan marka la yiri dambiil ayaa ku shidan laakiinse dambiishaas marka horeba intuuna cid ku shidin isaga isku shidaya marka hore isagu isku gubaya dambiishaas iyo waxyaalaha dhibaatada uu sugaysanaya haduu doono qofku uu xaasidiyo ha u geysto baabka haday doonto baabkaas ha yimaado oo qofkaas wuxuu doono ha u geysto laakiinse awalan dambiishu meesha ay ku jirto ayuu gubaysaa marka hore macnaha guri haduu dab ku shidmo marka hore guryaha kale ama qolal kale intuu gubin ama dabaqyada kale haduu dabaq kamid ah ku shidmo dabaqyada kale intuu u gudbin de marka hore dabaqii uu gubanaya dabaqii ay dambiishu ku jirtay uu gubanaya kuwi kalena waxba gaaraya qaarna haday doonaan dabaqyada kale qolalka kale qaarnaha ka badbaadaan qaarna ay ka badbaadin laakiinse awalan isaga isku bilaabayo gubashada iyo inuu xarqi isku sameeyo iyo inuu isbaabiyo markaana samirku wuxuu ku dhaxalsiinayaa qof kasto oo xumaan adiga kugu wada in uu ka guuleysiyo oo uu samirku meel wacan uu ku geeyo marka daba aad noqoto qof meel wacan taagay maxaa yeelay de hadii samirka lagu leeyahay qofkii samirku haduu qof noqon lahaa kariim ayuu noqon lahaa de maxaa u malaynaysaa qofkii ku sifooway marka qofkii ku sifoowa macnaha isna waa kariim macnaha markay arkeen Umar ibn Khattab iyo dadka saabiriinta in ay dad la sharfay yihiin ay ku heleen sharafta iyo waxyaalaha samirka ay ku heleen de waxay nin ka tagay way markaana waxa la dhahaa nolosha adag سيدنا nolosha adag waxay abuurtaa dad adag الحياة الصعبة
yacni noloshan iyo noloshan adag waxay abuurtaa dad adag oo macnaha dad niman ah oo hawlkar leh oo wax kastaba ku dadaalaya oo meel ka soo baxaya ayay abuurtaa dadka adagna waxaa la yiri ama qofka ninka ragga ah nolosha adag wuxuu ka abuurtaa raaxo macnaha noloshii xumayd dadku ay u arkayeen kuwa kale in ay nolol xun iyo nolol dhibaato leh ay tahay ayaa qofkii adkaa ninka ragga ayaa wuxuu sameeynaya muxuu ka abuuranayaa noloshii nolol farxad leh oo nolol wanaagsan nolol aad ka yaabasid qofkii ay balaayadu ku socotay ama qofkii ay xumaantu iyo ku socotay ayaa muxuu ka sameeynaya noloshu xumaan muxuu ka sameeynaya nolol dahaba oo qaaliya oo raaxo leh oo macaan ayuu ka sameysanayaa markaana sidaas samirka ayaa lagu sameyn karaa maxaa yeelay qofku markuu xumaanta iyo balaayada u samro xumaanta markuu balaayada markuu ku samro oo samirkii wanaagsanaa uu la yimaado ayuu qofkaasu nolosha kala gelaya laakiin isagoo aanu ku samrin lagama yaabo nolosha inuu galo markaana qofku waxa la doonayaa in uu saddex ku samro midna ka samro saddexna uu ku samro horto wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala u qadaray qofkaas inuu ku samro haduu ilaahay imtixaamooyin farabadan ku qadaro haduu ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxyaalo imtixaamooyin kamid ah ku qadaro maxaa yeelay la yusbih rajulan wala ahadan fi hadhihi dunya wa yumsi illa annahu mubtala maxaa yeelay qof muu arooreysan ama muu galabeysan ama habeenkii muu galin illa qofkaas uu imtixaamaya wax un ayuu ku imtixaamaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax un buu ka xarimay wax un buu u diiday wax buu siin waayay ama waxbuu shahwooyin iyo fitan iyo hanti iyo waxbuu ku u badiyay oo qofkii waa lagu imtixaamaya marka qofku inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala wixii uu qadaray uu ku samro weeye qodobka labaad waxa weeye waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku amray ee waajibaadka inaad ku samirtid iyadana fadli badan ayay culimadu dhahan maxaa yeelay qofkii ku samro waxyaabahaas de qofkii wanaag wuxuu dhaxalsiinayaa faa'iidooyin aad iyo aad u far badan ayuu dhaxalsiinayaa tasaddexaadna waxa weeye qofku xumaantii iyo shahwooyinkii iyo naftii wixii laga xarimay waa in ay ka samirtaa wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka xarimay ka samir oo ka tag oo macnaha hadhihin maanta waxan ma u baahanahay aad iyo aad ayaa u baahanahay waxan hadii aad u baahantahay haduu xaraan yahay وقفك وبهاي إلهي سبحانه وتعالى وكم محرمين محايا إلهي سبحانه وتعالى وقرنا يا قحن إنه نفائدة ولهين إلهي سبحانه وتعالى وحياله كحرم يو وحوجته إن أي فائدة كلهين محايا إلهي بأقون وله عذيو وحاسبة مركانا وحن وقفك ومودي إن أي فائدة وتهاي هذا حرام تهاي وماها محايا إلهي سبحانه وتعالى يا قحرمي ما دام إلهي وكحرمينا وحن فائدة أي وليهين مجرد عشر كيني انتيني هوري وانو صور دميني انتيني دبي ايانو قلنا نبي صلى الله عليه وسلم محوير الظهور شدر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان ظاهر نمضو يقفكو إنو اسنذيفيو اي نذيفينتنا كميتهاي يإنو ظهارات قاطو وإيمانك كالبركيس إيمانك شدريس وي يقيبتيسا مركا وحايا لي ظاهر نمضو دي نلوش انبا كجرتا qofka waa aragtay caafimaadka qofka waxa la yiraahdaa caafimaadada dhakhaatiirta caafimaadka waxay dhahan qofku haduu sidiisaba nadaafada ku dadaalo wax kasta uu iska nadiifiyo qofkaas cudurada uu ka fogaanaya haduu dharkiisa nadiifiyo jirkiisa haduu nadiifiyo meeshu ku seexanayo haduu nadiifiyo hadii uu guriyihiisa iyo suuliyadiisa suuliga uu galayo uu nadiifiyo hadii uu cuntada laftirkeeda iska nadiifiyo de qofkaas waxa la arkaa qofkaas in uu ka fogaanayo cuduradu inay ka fogaanayaan markaana diinteena hadii lagu dhaqmo waxa ogaataa in caafimaad fara badan la helayo oo cuduradan maanta laga cabanayo uu qofka asiibeen walhamdulillah tamla ulmiisaan alhamdulillah qofka haduu dhaho ilaahay subhanahu wa ta'ala ba ma hadle qofka ku soo celiyo waxay qofkaas waxay u bixinaysaa miisaanka yawmal qiyaamaha ay u buuxinaysaa oo qofka amalkiisa lagu miisaamayo miisaanka dhanba iyada buuxinaysa markaana waa la kala duwan yahayo qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala hanti iyo barwaaqo far badan lagu xamdiyo qofkii la siiyay de wuu ka duwan yahay haduu ku xamdi noqo qofkii kale aan barwaaqo badan iyo waxyaalo far badan oo lagu xamdi noqo aan la siin laakiin ku xamdi noqo labada qof hadii ilaahay ku xamdi noqan
dee way kala ajar badan yihiin inkastoo qofku laftirkiisa ilaahay subxaanahu watacaala jawaarix iyo waxyaalo lugo iyo gacmo iyo jawaarixdaas dhan uu ku shaqaysto qofkii uu ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyo oo ay tahay in lagu mahadnaqo ay mudan tahay in lagu mahadnaqo wa subxaanallaahi walxamdulilaahi تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض سبحان الله والحمد لله قفكو هدوده ونكسع العليا إن شاء الله تعالى وحب حليا ما بين السماوات والأرض سموينك يدلك انت أدحيس أي بحنيا والصلاة صلاة نور وي قفك نور أي كدكتا صلاة قلبك سيئون رنسا qalbigiisa u nuurinaysaa oo waxay u nuurinaysaa noloshiisa oo waxay u nuurinaysaa iimaankiisa oo xitaa jidhkiisa nuurinaysaa oo qofo waxa la dhahaa qofka uu ka salaad badan yahay ka nuur badan kana qalbigiisu ka nuur badan jidhkana ka nuur badan meel kastana kaga nuur badan weeye wasadaqatu burhaanun sadaqaduna waa burhaan ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wasabru diyaa'un samurkana waxa weeye waa diyaa waa nuur maxalu shaahidkeenu iyo meesha casharkeenu uu ku saabsan yahay waa halkan waxa weeye wasabru diyaa'un samurku waxa weeye waa diyaa oo nuurka waxa dhahaa shuuca buu leeyahay sidaas oo kale qamarka ayaa lagu sheegay diyaa qamarku waa diyaa markaana xoogaa diyaa sida nuurka kala maha uu ka yeelay shuuca badan yahay shuuca buu leeyahay markaana shuucaas waxa laga wadaa macnaha qofku macnaha karaahiyada uu karaahiyanayo waxa loogu mithaaliyay diyaaga waxa weeye samirku waxay isku mid yihiin macnaha shuuca karaahiyada uu karaahiyanayo shuuca weeye samirka macnaha samirku karaahiyada uu wato oo qofkii uu ku samraya xumaantii uu ku samraya waxyaalihii ilaahay subxaanahu watacaala ku imtixaamay ayuu ku samraya mar hadduu ku samro qofkaas naftiisu khasbaya Soomaha markaana waxay la mid tahay qofkii xoogaa yaro shuuca ku jiro de shuuca waa arkasa dadka uu yara dhiba markaana samirgana xoogaa dhibaata ku jirta macnaha waa laga wadaa laakiin marka dabe muxuu leeyahay diya nuur buu leeyahay wax kasta uu shuucaas ku dhibo laakiin dayixii waadiya ku raaxaysanaya waa adigan nuurkii ilaahay subxaanahu watacaala wax ku ifsanaya aan wax kale u baahnayn waa kan wax kasta uu ku ifiyay markaana sidaas hooyi samirku wax kasta uu ku ifinaya wax alaale waxa u baahan tahay dhow gaarsiinaya war quraanu xujjatun laka aw alayka quraanku xujo ayuu adiga ku yahay ama aadu ku yahay quraanka hadii aad ku dhaqantid qofkii quraanka ku dhaqmo intuu xifdiyo oo ku dhaqmo quraanku uu doodaya maalinta yawmal qiyaamah xujo ayuu u yahay ama isagu ku noqonayo de qofkii quraanka ku dhaqmi waaya de qofkaas isaga ayuu xujo ku noqonaya isaga ayuu maalinta yawmal qiyaamah qabsanaya oo waxa laga yaabaa de inuu qofkaas khatar galo hadhowtana uu naarta galo sida ay kuwa badan ay ku dhici doonto laakiin quraanka hadii aynu ku dhaqano insha Allah taala quraanku inagoo xujo noo noqonayo isaga inaga noo doodaya maalinta yawmal qiyaamah wa kullu nas yaqdu fabai'u nafsuhu famu'tiquha aw mubiquha dhamaan dadku way wada kala hayaan ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam iyagoo naftooda soo iibinaya midna wuu xoreynaya midna wuu halaagaya baalir waa aragtay dadku arooti ay wada tagayaan marka mid salaadii tukada mid aan tukan mid xaraan soo shaqeysta mid aan xaraan soo shaqeysan oo xaal soo shaqeysta markaana ki ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa aroortii markuu waa baristo ilaa iyo galabkii amarkii ilaahay subxaanahu watacaala fuliyo kuwa kaas waa naftiisi ayuu xoreeyay naftiisi shaydaan buu ku xoreeyay waxyaalay xuma ayuu ka xoreeyay ilaahay subxaanahu watacaala buu u xoreeyay ama midna uu halaagayo de waxyaalay xaraanta ayuu u dhaqaaqaya hadhowtana saasoo naftiisa ku halaagay markaana xadiiskan nabiga sallallahu alayhi wasallam maxalu shaahidkeenu iyo meesha casharkeenu uu ku saabsan yahay waxa weeye waa sabru diyaa'un samirku inuu nuur yahay oo qofku uu nuursanayo markaana samirka hadii insha Allah taala ilaahay subxaanahu watacaala ku guuleysiyo waxa ogaataa qofyo inaa nuursanaysid nabiga sallallahu alayhi wasallam حديث كله أصحابته من الأنصار كميد أيو وسي وحبي ويديسن وسي حدنا وحبي ويديسن وسي حدنا إلا أي كلمات وحيد حلوبا وحجرت ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم وحي أنيا أو خير
oo maal iyo hantiya oo wax kasto wanaagsana aan hayo anigu agteeda ku kaydsan maayo de inii diidin maayo ama waa inisiinaya macnaha wax kasto aan hayo laakiin waman yasta'fif yu'ifhu Allah qofkii عفيف نقضه قفكي إسعفيسية إلهي سبحانه وتعالى عفيف أيو كدقيا معناها قفكي عفيف نمضي إسبرة عفيف نمضو وحاوي من وحيكوت ما دال وضبا قفكو فرشكيسا إنو عفيف كنقضو وحارانتا يستنادا يو وحيالها كده يقولنك إنو أدوان يو إنو علوشيسا وحيستو وحارانتا ونين استعمالين ونعنين أما ومدو waxa uu ka barayo waxa uu soo barayo umada uu inta barayo wuxuu uu iska daayo oo xafiif ka noqdo oo qof wixiisa uu isku haleen uu isagu shaqaysto uu wixiisa isku haleeyo ama ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka barayo qofkaas wuxuu u baahan yahay almuhim inuu qofkaas noqon qofku dad qof ku caan ah dadka wax weydiista oo ay dadku karayeystaan qofkii cafiif iska dhiga ilaahay subhanahu wa ta'ala cafiif ayuu ka dhigaya oo inta baryada hada ka fogaato oo aad nacabtaay oo waxyaalaha dadka weydiista oo aad ka fogaato inta ay ku barin iyo dadka bara inay wax weydiistaan iyo shahaadka iyo waxyaalaha aad u farabadan ee dadku hadda caadaysteen ee moodiyaan dadku inay wax iska caadiye tahay qofku haduu uu ka fogaado waxyaalahaas oo dhan oo isagu iska fogaado oo isbaro inuu ka fogaado ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka fogeynaya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u ومن يستغني يغنيه الله قفكي دور سوما او قنيتوما إلهي سبحانه وتعالى قني أيو كدغيا قنينimadu door bay u qaybsantaa laakiin taalkan laga hadlayo ee qofka la doonayo inuu isbaro waxa weeye tan qofku isagoo uu macnaha u baahan yahay qof uu wax weydiisanayo ama isagoo aan waxba hayn inuu qofkii iska dhigo qof waxaya oo aan qofka u baahnayn oo aan hantidiisa iyo sharaftiisa iyo waxyaalihiisa uu u baahnayn caadatan hadii macnaha aad aragtid dadka sidaas ah de sharaf ay leeyihiin qiimo ay leeyihiin hadii aad aragtid dadka waxa ku sifaysanay inta dadka wax weydiistay dadka ku taagan oo aan qani ahayn de waxa weeye qofkii macnaha sharaftiisu hoos bay u dhacsaa markaan hadii aad doonaysid nin raga inaa noqotid waxa weeye qani iska dhig oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qani ayuu ka dhigaya maxaa yeelay waxyaalahan baahidan shaydaan ba ku furfurayat ya'idukum al-faqra shaydaanku dadka wuxuu ugu balan qaadaa ama ugu yeeraaba ama uu tustusa faqri iyo waxaas iyo waxyaalaha xunxun ee qofka maanta oo niyadiisa ku soo dhacaya iyo wixii xoolo ma haysatid iyo waxyaalahaas shaydaanka uu ayaa wata markaana waxan wax run ah ma haba waxan waa wax khiyaali oo shaydaanku uu qofku furfurayo waxa aragtaa qofkii caadi ah oo soconaya oo macnaha oo aan waxba ka maqnayn oo labisan oo yaani wuxuu cunayo iyo wuxuu uu isticmaalo haysta saddexda waqti wuxuu cuno haysta ayaa qofkii waxa laga yaabaa inuu u banbaxo waxyaalo kale uu qofku soo weydiisto inkastoo laga hadlay dadka waxbarya waxa la yiri qofku macnaha haday xilliga uu waxbari la taagan yahay ama ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u baneeyay inuu qofkan waxbariyo qofka maskiinka ah waxba haysan ee awoodu ku shaqeystay waxyaalahaas laftirkiisa waxa la doonayaa baryadii ama hiduu ilaahay subhanahu wa ta'ala waxsiyay ama qof dhowr qof haduu ka qaaday wuxuu maanta ku qadeeyo ku casheeyo ku quraacdo macnaha inuu badsan takaafur waxa la dhaho qofkii wax badsi waxa arkaysa mid baabac iska soo qaadanaya dadkii wax iska aruursanaya bacdi waxa laga yaabaa in ay lacag far badan ugu jirto oo maanta ku qadeyn karo ku cashan karo ku qadeyn karo oo ku quraacan karo baa laga yaabaa inuu ku jirto hadana wuxuu sameeyaa waxbuu iska aruursanaya macnaha takaafur maal far badan ayuu doonayaa inay u farabataan waxan ayuu doonayaa maanta umadu saas ugu soo wareegay waxa laga yaabaa wuxuu cunaba inuu haysto laakiin waxyaalo kale u baahan yahay doonaya waxaas inuu baryo waxyaalahaas diintu may baneen diintuna raali kama aha laakiin qofku haduu wuxuu cuno uu haysto waxa weeye inta kale inuu iska samro oo uu muxuu ku leeyahay dadka wuxuu cun lahaa uu haystaa macnaha kuwa kale waxa laga yaabaa aan waxba haysan inuu booski ka buuxiyo kuwa kale wax la siin lahaa oo masaakiinta caadiga ah oo iyagu waxba haysan bal doonaya in la siiyo marka kii wax haystay haduu yimaado de waxa arkaysa inuu kuwii hore ama kuwii wax la doonayay in la siiyo ee u baahnaa inuu meeshii ka buuxinayo marka soo kale waxa la yiri waman yastaqni yughni laakiin qofkaas waa inaad qofka ka fogaataayo macnaha aad qani iska dhigtaa
inaad qani iska dhigtid de ilaan waa tahay qaninimada iska dhig oo isbar macnaha waxa la ku tusayaa ilaan waa tahay waa in qofka isbaraat maxaa yeelay hoosta waxa ka jira qofkan waxa laga yaabaa inuu waxyaalo kale ka fikiro oo isdhaho war arma wax weeyda iyo waxyaalahaas waxa baacinaya inaad qani iska dhigtid haddii aad qani iska dhigtid waxaas way ka tagayaan laakiin haddii aad iska dhigi weeyday waxa weeye waxaas oo dhan ma ku soo xareeranaya marka wax kasta u baahatid waxa laga yaabaa inaad wixii aqbashid laakiin haddii aad wax u baahatid haddii aad tiraahdo war waa haysataa de waxa weeye qofkaas qani buu iska dhigayo qaninimadii buu isbarayo waxa weeye uma dhaqaaqayo waman yatasabbar yusabbiruhu allah qofkii sabrana ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu samirsiinaya oo qofku waa inuu samirsiiyaa waa inuu sabriga isticmaalaa oo isagu waxan samirsiiyaa oo samriga isbaraa maya haduu wax ku dhacaan maya ku samir waxan ku samir oo aayadaha samirka qayba oo xafdiya waliba xiliyada khatarta ee qofku uu ku jiro ee loo doonayo inuu samro samirka aayadaha samriga waa inuu qayba oo xafdiya oo ku soo celiya waa inuu xitaa waraaq ku qortaa oo markuu meel kasta marayo waraaqdii eega inma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri xisaab aayadaha soo dhan iyo aayadaha kale inuu meel ku qorto oo uu qaybiyo uu ku soo celiyo aayadaha samirka ama uu naftiisa baro inuu samro markaasna qofku sidiisaba ilaahay subhanahu wa ta'ala samri buu ku abuuray qaninimo ku abuuray waxyaalaha soo dhan ku abuuray laakiin samirkaaga waa inaa meel wanaagsan gelisaa maaha inaa xumaanta ku samirtid kuwa waxay dunub iyo macaasi way galayaan hadana dunubtii macaasidii ay ku samarayaan sidaas ma banaana samirkaaga waa inaa meel wanaagsan aad ku lumisaa weey wama u'diya ahadun adaan khayran wa awsa'a min as-sabr casharkeenu intuu ku saabsan yahay xadiiskeenu casharkeenu waa inta iyo inteena hadir soo barnay waman yatasabbar yusabbiruhu allah wama u'diya ahadun qof lama shin adaa iyo khayr adaa wax la siiyo oo ka khayr badan oo ka waasicisan samirka ana qofka hadii wax la siiyo waxyaalaha ugu waaweyn oo ugu waasicsan oo ugu khayr badan waxa kamid ah samirka maxaa la samirku waa waasic cilmigi barashadii ba ku samrasa cibaadadii ba ku samrasa waxyaalihii xumaantii ayaa ku samrasa hadalkii xumaa ayaa ka samrasa inaad tiraadid shawaadkii ba ka samrasa wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku amray ayaa ku samrasa markaan waa waasic samirka hadaa isbartid samirka meel kasta waa u isticmaali kartaa waa sidii furo lagu yiri albaab kasta waa kufr hadaa furaha heshid albaab kasta waa kufri kartaa markaan samirka hadii aad samirka heshid amal kastaba samirkii ayaad ku furasa insha Allah ta'ala عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وحوي إن شاء الله تعالى وحين قبين عشر كينا صبركم قرموا رعيا إنما الصبر عند الصدمة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أصحابي هذا وحكى أنت المهدي مركو قرن أنت أيو يري إسكسمر أو معناها أو احتسب أو معناها وحساب doono oo ilaahay subhanahu wa ta'ala samirkaaga iyo waxaaga ku samirsid iyo ilmaha ka dhintay waxa sameeysaad ku samir ilaahay subhanahu wa ta'ala ajar buu ka siinaya marka gabadhu markaas qabrigees joogtay oo way soo carartay markaana waxay tiri ilayka cani may iga tagbay tiri adiga laguma asibin waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala anay ugu asibay oo kale way tagtay uu tagay hadhow waxa lagu yiri waa rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadhow way u timi waxay ku tiri kuma garanayn hadeeran samraya wuxuu ku yiri as-sabru inda sadmati al-ula inma sabru inda sadmati al-ula samarku waxa weeye ku dhufashada hore asibada hore markay sida ku asibto waxa aad tiraadid ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku qabanaya hadii aad ku shuru noqdid hadaa tiraadid inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un oo aad tiraadid ilaahay subhanahu wa ta'ala ayanu kanimi ilaahay ayanu unoqona hadaladaas laakiin ma tira maaha inaad tiraadid la hawla wala quwwata illa billah dadba waxay dhahayaan la hawla wala quwwata illa billah markii dhibaatadu ku dhacdo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un baadaasa istirjaa laakiin la hawla wala quwwata illa billah meelo kala lagu dhahayo qofku markuu ilaahay subhanahu wa ta'ala kalmo weydiisanayo iyo wax ka awood weyn markay qabsadaan iyo wax awood weyn ama hawl weyn inuu fulinayo iyo waxyaalahaas isti'aanada ilaahay subhanahu wa ta'ala ina kalmaysid awoodiisa laakiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un baadaasa hadhow sidaas ayuu u baray nabiga sallallahu alayhi wasallam asxaabta xadiiskaas faa'iidooyin baa laga qaatay oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxay ku tiri gabadhaas hadal lagu gaaloobo laakiin se waxa loogu cudur daaraya baa yiri deemay ogeyn
ومعناها دباتة درادة رسولك إنه يهي صلى الله عليه وسلم يوجين به واتن كتمي واتن أتمي أي كل هذا من كوجين تكايا لقى قادني وحوي معناها قبضوا marka ay qabriga timi iyadoo ooyeysa ay timi macnaha wax ka daran ayaa soo kaxeeyo de macnaha gabadhii waxay sameysay wax xaraan ayay sameysay de qabrigii bay timi Soomaa maadaama ay qabrigii timi de gabadhan macnaha dhibaatada haystay ayaa ka weyneyd oo nafteedii bay celin kar weeday markaana waa loo cudur daaray maadaama ay gabdhuhu ay dumarku ay daciifin yihiin oo xagga ay daciifin ku yihiin in ay wax ka awood weyn ee qabsatay ayaa ay qabsadeen ayaa macnaha ayaa loogu cudur daaray waxa lagu ma sameeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu arkay xaaladii ku jirto ayuu isaga tagay markaana qofku siisaba gabdhuhu waxa la doonayaa in xabaalaha iyo waxyaalaha ay ka fogaadaan maxaa yeelay gabdhuhu waa dad miisaankoodu iyo dareenkoodu aad u hooseeyo hadii ay dareemahaas haday ku dhacdo way ooyeysaa way macnaha sida xaaraanta ay sameeyaan gabdhaha muslimaantu hadeer ay ooyaan oo ay macnaha ay gabadhii waxay sameynaysaa way ooyeysaa way dhirbaaxsa mariyii iska jeexaysaa aad bay u qaylinaysaa ilmada ooyinta la ilmeeyo lama diidana taas waa raxmad laakiinse qaylada iyo qofku inuu dhirbaaxayo inuu baayay dhaho dhulka isla dhaco mariyahaas ka jeexo taas la diilayaa iska badaaba inay xiskiisu tagee macnaha koof far badan baa waxay sameeyaan gabdho far badan ama dad far badan inay xiskooda tagaan oo ay waashaan ama xanuun dhaawac maskaxda ay ka soo gaadhaan maalintii oo dhan ay xanuunsanayaan macnaha qof markuu ka dhinto markaana qubuurta baabkaas waa laga hadlaa waa baab gaar ah markaana gabdhuhu macnaha qubuurtana ma booqdaan waa loo diiday qubuurta sida raajix asaas weeye in ay booqdaan maxaa yeelay tantooda awoodnimo ayaa yar oo markay qabriga timaado aabaheed iyo qabrigiisa iyo dadkeedii markay ku aragto waxa laga yaabaa inay qaylo iyo baayay iyo waxaas hoos ay bilowdo ba inta badan waa intaas laakiin lama diidayo iyadoo wadada maraysa inay inta istaagto ay soo marto oo ay soo salaamto oo ay hadhowtan iska soo tuko laakiin jamaacad inay isku raacaan oo ay booqashada caadiga ee la doon ay nimanka loo amray in ay sameeyaan taasay shariicadu diiday markaana nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu baray samirku waa inta ugu horeysa marka qof walba markay balaayada hore ku dhacdo ugu samirkaaga markay balaayada hore ku dhacdo samir oo isla markiiba samir ku bixi oo isla markiiba waxyaalaha qofka samirka looga doonayo oo ay balaayada ku dhacaan akhri markaana insha Allah ta'ala intaas ay xasuusinaa 10 samirka intaas ayuu ka soo gabagaboway intaas ayaynu ku soo jiinaa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh